Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waadiin salaamay asxaabi soo dhawaada. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Saacad ka hor waxaa maqlay inay hooyo Fartuun geeriyootay. Allah u naxariisto, sabar iyo iimaan Allah naga wada siiyo. Waan ka naxay geerida, wallaahi qof la yaqaan geeri kuma fiicna, subxaanallah. Aada ugu naxay, laakiin mar waliba qofku hadduu waqtigiisa dhamaado waqti looguma daraayo. sabar iyo iimaan Allah idinka siiyaan leeyahay caruurteeda iyo xaajigeeda. Cudurka xumaa ayaa laga helay. 2 maalin ka hor ayay soo sheegtay video ay kasoo duubtay in cudurka laga helay, laakiin anima ba aan arkin, wallaahi ma arkin. Haddaan arki lahaa video ayaan kasoo duubi lahaa, ayaan dhihi lahaa asxaabteeda la wadaagi lahaa oo igu xiran inay u soo duceeyaan. Maadaama qofku wax uu iskaaga baahneen, laakiin uu markuu xanuunsan yahay ama markii dhibaato uu hayo oo inaa u duceysid uu u baahan yahay, ducadaada laga yaabo inuu ilaahay u aqbalo macal asaf. Laakiin hadda ilaa iyo hadda xitaa duco ayay noogu baahan tahay. Duco ayay noogu baahan tahay dhammaanteena. Inta videogan aragto waxaan leeyahay sii share gareeyo, walaalihiin la sii wadaaga oo u duceeyo. walaasheena Fartuun caruuray ka tagtay, caruurteedana waxaan leeyahay ilaa calooshooda ha u adkeeyo oo sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Waa meel loo wada socdo qabriga, dhammaanteen aakhir waan u soconaa. Iga hore waa ka dambeynaa. Qofku waqtigiisa hadduu dhamaadan waxbaa sabab loogu dhigaa mooye waqtigiisa waqti looguma daraayo. Galaas biyo haddaa adduunyadan aad wax kaga leedahay, adigoo galaaskaas biyo aadan cabin, nafta lagama qaada, malaku moodku ku sugaa intaa galaaskaas biyo aad ka cabaysid. Marka intaasaa waqtigeedi ku ekaa. Allah u naxariisto, jannada firdowsana Allah ka waraabiyo. Community-geeda ayaan ka arkay inay geeriyooto, laakiin saacadooyin ka hor 6 saac ka hor ayaa gabadheedii video soo duubtay oo leh hooyadeedina qaski ayaa ku xirmay, Soomaali weyne u duceeya. Markay geeriyootay gabar ii soo share gareysay ee dhahday hooyo Fartuun way geeriyootay. Allah u naxariisto, subxaanallah. Aada ugu naxay, wallaahi aad iyo weyn ugu naxay. Maalmahan waa mashquulsanaa, daadis waa YouTube iyo afaarihiis dhan warba kama haayo. Wixii la soo dhigay iyo wixii aan la soo dhigin warba uma haayo. Waa iska yar mashquulkay too much aha. Daadis waanan u arkin videoga ay ka hadlayso inuu cudurkii laga helay, iyo video gabadheedii oo haddii ay soo duubtay oo dhahaysay hooyo ha loo soo duceeyo. Haddana 1 saac kadib waxay soo dhahday hooyo way geeriyootay, jannada firdaws Allah iskugu wada keeno. Aada ugu naxay community-ga. Marka waxaan idin leeyahay hooyadiina u duceeya oo mar waliba oo salaad dukatiin u duceeya, sadaqa u bixiya, haddii deen lagu leeyahay deenta ka bixiya, oo ma aragtay haddii soon lagu leeyahay ka sooma. Ilaaha u naxariisto, soona soo dhow. Anaga dhanna aan isku wada duceyno. Kullu nafsin daa'iqatul mawt, nafsad walba way geeriyoonaysaa. Ilaahay waxaan ka barinaynaa geerideena iyo gafkeena alla ma kulmiyo. Aamin dhaha. Geerideena iyo gafkeena alla ma kulmiyo. Sida ay gabadheeda community ay ku soo qortay, hooyaday waxay geeriyootay dhahday ayadoo weese qabto oo ashahaadanka ay qiratay. Maasha Allah, tabaarakallah. Anagana sidaas ayaan rajeynaynaa inaan ku geeriyoono hadduu eeba qadaro. Aan isku wada duceyno, because qof adduunyada ku waaray ma lahan. Dhammaan waa geerida lama jecla, laakiinse qof adduunyada ku waaray ma lahan. Maanta adigoo oo aqafl iskaaga jirtidaad geeriyoon kartaa, adigoo gaf ku jirtidaad geeriyoon kartaa. Geerida waxaa ugu xunba geeri mootul fajac la dhahaayo ma fiicna. Geeridaas ay camal waa geeri laga naxo. Aada iyo weyna loogu naxaa geeridaas. qofka hadduu xanuunsan yahay xitaa waxaa la isdhahaa leelehe waaba laga filan karaa. Moogta hadduu qofka xanuunsan yahay ma soo kacaaya la isdhahaa mararka qaar. laakiinse ilaahay waxa Soomaalidu waxay dhahdaa ilaahay waxa dile xayeysino leemiya. Ma aragtay qof oo xay ah ayuu ilaahay waqtigiisa hadduu dhamaado nafta ka qaadaa. qof oo ma aragtay tacbaan oo sariir saaran oo la isdhahaa aleele qofka ma noolaan karo oo geeriyoona
ayaa ma aragta soo kacayo asigoo caafimaad qabo bir shaqaysanayaad arkaysaa maantana sariiru ku saaraya marka mar waliba markuu qofka xanuunsan yahay maahan micnaheedu inuu geeriyoonayo laakiin Soomaaliya deena mar waliba qofka markuu xanuunsan yahay waxaan u tirinaa dhanka iyo geerida ilaahi ayadan ha u naxariisto inta hadda xanuunsan Allaha caafiyo inta hadda xanuunsan Ilaaha caafiyo inta geeriyootay Allah u wada naxariisto dhamaanteena loo maalin ka hor fiidiyooga ay duubteen arkay walaa calool xumo sidee u hadlaysay ayadoo oo leh mar waliba alxamdulillaah ay haddana ma aragtay hadalkeeda sii waday dhamaanteena hadda waa fiican wax sidaas dhib u leh ma qabnay dhahday dhadhan kale inaga guuray iyo urka calashaan yaa iyo raa'ixada marka Allah u naxariisto way fartuun waan kana geerideeda idinka dhamaanteena u soo duceeya walaalahayga adduunyada sidaan iska adduunyada oo marka sii dambeeyo waa ma aragtay way sii halaabaysaa mooyee dambina waa ku sii ziyaadi lahaa leh hadii sii noolaan lahayd qof walba oo dambaaba marka adduunyadan iyo wasaqdeeda ka tagtay anaga inoogu tagtay anagana ilaahay gadaasheeda nama fitneeyo idinkan ilaahay calooshiina idin adkeeyo ilaan waxay ka tagtay caruurteedii inoogu baahi badan maanta anaga markii oo loo fiiri dhankaas iyo xaajigeeda Allahu akbar ilaahay caruurteeda au adkeeyo calooshooda hooyadiina u duceeya kaligiin idinkama tegin dhamaanteena inaga tagtay dadka oo qaflad ku jirta ayaan waxaan dhihi lahaa adduunyada waa u jeedin xaaladeeda sida ay tahay maanta qof adiga jeceshahay oo taqaanid oo isleedahay aleeyahay qofka marnaba ma geeriyoonaad ma aragtay aad waynaysaa qof kuugu dhawaad waynaysaa adigoo oo marka intaad dhiman lahayd adigoo wax ku jirtid qafla ama adigoo TikTok ka ciyaaraya ka jeesayo yaa wiilashii gabdhaha oo qaflada ku dhex jira ayaan haystaa intaad geeriyoon lahayd yaa oo naftaada waqtigii loo soo jiro ma ogid marka ilaahay ka cabsada oo ilaahay u toobad keena mar waliba ilaahay toobadiisa way furan tahay ilaahay u soo noqda oo waxyaabaha aad baashaalka iyo maalayacniga aad ku dhameynaysiin waqtiga berigo idin la xisaabtama ilaahay oo waqtigaaga intee ka soo bixisay lagu leeyahay maxaad ku bixisay yaa marka intaadan lagu xisaabinin is xisaabi xaasibu qabla an tuxaasibu naftaada xisaabi habeenkii markii oo seexinaysid sariirta aad kortid intaadan seexanin ka hor naftaada la xisaabtam nafteedii maxaa sameysay dheh oo dambi ah yaa maanta dambi ka gashay ilaahay u toobad keen adigoo nadiif oo saliim ah seexo marka oo dadka dhan aad cafisay marka asxaab fiidiyoogan inta in ka badan inuu dheeraado marawi walaa aada ugu naxay marnab mis dhiheenin fartuuna geeriyoonayso oo ma aragtay waxay ahayd gabar oo maasha Allah oo fiican maama fiican ahayd oo dadku wacyi geliso oo wacdigeeda oo dadka wacyi geliso mar waliba hadalkeeda aan dhageysto dhiirigelina ka sii qaaday markaan dhageysto hadaladeeda yaa qofka maanta markuu wax ku sheegayo inuu ka waay aragsan maasha Allah aada u jeclaanaysaa dadka aan jeclahay kamid ahayd Allah u naxariisto